tabaananka xorta taas sidaad u aragtaa adigu runtii waxaan taa si kooban uga jawaabaya dalku dastuur buu leeyahay wixii dastuurka dalku uu waafaqayo waajib bay ku noqonaysaa xubnaha baarlamaanku inay meel mariyaan wax kasta oo dastuurka ka hor imanayana waxa uu qeexayaa qodobka shanaad ee dastuurku wax kasta oo dastuurka iyo shariicada islaamka ka hor imanaya inay noqon doonaan wax aan la fulin goluhu marka wuxuu ku khasban yahay ama uu khuduucaya uu raaci doona dastuurka qaranka haddii markaa taa aad noo sii yara bayaamiso dastuurku muxuu ka qabaa samaynta baanan xora in la sameeyo dastuurku wuu ogolaanayaa hadeerna dalka inay ka jiraan baan anigu aaminsana laakiin waxaa laga yaabaa inaynu kala saarno baananka xorta ah maxaynu u naqaana maxaynu odhanayna ma siyaasad dal kale iyo bunuugtooda aynu ka hadlaynaa mise waxaynu ka hadlaynaa siyaasad applicable ku ah ama ku habboon dalkeenna iyo muctaqadaadkeenna tusaale ahaan bunuug baa dalka ka jirta daarsalam banki baa jira dahabshiil banki baa jira briman banki baa jira way shaqeeyaan waxaan filayaa waxaad uun moodaa in dalkeenna lagu abuuray sheeko odhanaysa kama jiraan bangiyo xoraya dalka waxaan isleeyahay taasi sida loo dhigayo maaha qofku haddii baroorta orgeyga ka weyn qofku haddii uu doonayo wax kale oo uu ka hadlo ama meel kale oo uu dacal saaro taas waa gaar laakiin bunuugtii waana jiraan xaqna way u leeyihiin cid kasta oo awooddeeda lihi inay bangi furato mudane guddoomiye sidaad ka war hayso intii loolanka doorashadu uu socday dhinaca idinka soo horjeeda waxyaabaha ay adiga kugu eedeynaya shakhsiyan waxaa ka mid ahaa inaad xidhiidh la lahayd waayadii hore ururada ay ku tilmaameen xag jirka eedda sidaasa maxaad kaga jawaabaysaa runtii qolada iga horjeeda hadday maanta tilmaamayso 15 sanadood baan xisbiga kulmiye ka mid ahaayeen waxa aan ahaa maanta ma noqon shalayna waan ahaa oo marka koowaad horta taa dawaynaynu isla qaadana marka labaadna haddii loo yaqaano qof cibaadaysto tukado masaajidka taga inuu xag jir yahay waan qaadanayaa kaba doodi maayo in hadda diintiisa lagu muransan yahayna miihi laakiin arrimahaasi waxay uun ka mid ahaayeen loolankii doorashada iyo dacaayadkoodii waxaan filayaa xukuumaddu hadday caynkaa leedahay waxaan doontay xilkan waxaan u doontay shacabka dawladana waxaan u doontay warqadda dambi la'aanta waxaan ka ahaa 5 sanadood iyo bar wasiir xisbiga talada maanta haya qayladaasi may soo bixin marka baqa bay ahayd waxaan oray baqahaasina maanta iska dhamaan dadka arrimaha sidaas sheegaya haddii waliba aan su'aal kale kaasi weydiiyo waxay sheegayeen inaad waqtiyada qaar ka mid ahayd ururka al-ittixaad arrintaasi ma jirtay sideeda maya ma jirin